Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal halkani waa janalka goobta media waxaan idin hayaa muuqaal cusub oo ku saabsan fanaanada caanka ah ee la yiraahdo Xaliimo Gobaad ee dhawaan sheegtay inay fanka isaga baxday ayashee marka hore muuqaalkan haddii ay tahay markii hore ama markii ugu horeysay uu soo gaaro fadlan share garee oo la wadaag asxaabtaada ee sidoo kale janalkeena subscribe saara fanaanada caanka ah ee Xaliimo Gobaad dhawaanna fanka isaga baxday ayaa waxaa hadda soo baxay in markaasi ay ku dhawaaqday in qof walba oo Soomaali ah taageerayaasheedana ka mid ahaa maadaama fanka isaga baxday ay joojiyaan heesaheeda in markaasi ay dhageystaan fanaanada oo kasoo muuqatay iyadoo si degdeg ah ku tagtay xaramka barakeysan ee dalka Sacuudi Carabiya waxa ayna muuqaal iyadoo asturan ay soo duubtay maadaama qaawanaan looga bartay ay sheegtay in markaasi in xilligan wixii ka dambeeyay fanka guud ahaan aysan ka jiri doonin wala hore ay u shaacisay waxa ay sheegtay in fanka wax wanaagsan uusan ahayn dadka Soomaalida looga baahan yahay inay iska ilaaliyaan waxyaabaha dambiga ah xaramka ayayna sheegtay inay u tagtay arrimo ku saabsan inay markaasi kobciso markaasi sidoo kalena dambidii ay hore u gashay ay iska dhaqdo maadaama fanka uu yahay dambi isla markaana sidoo kale ay ka toobad keentay fanaanada caanka ahayd ee Xaliimo Gobaad balse hadda fanka isaga baxday ayaa dhawaan waxaa guursaday in markaasi hore oo ahaa qaybta canshuuraha ama agaasimaha waaxda furdada ee dekedda magaalada Muqdisho kaasoo horey xukun dowladda federaalka Soomaaliya ee ugu riday kadib markii lagu soo eedeeyay waxyaabo la xiriira musuqmaasuq waxaana hadda ay ku aqal gashay dalka Hindiya toddobada markay ka soo baxday kadibna waxa ay tagtay xaramka waxa ayna sharaxaysaa sababihii keenay in ay fanka isaga baxdo iyadoona baaq u dirtay dadka Soomaaliyeed ee fanaanada taageeri jiray fanka ka war horta fanaan mar dambe noloshaada inay hees dama qaadamo rabto ilaahay irsaaqad meesha nooga furo insha Allah dadka fankaada dhageysanaya maxaa leedahay waxaan leeyahay insha Allah fankayga dhageysanina mar kale wixii dambi aan gal ilaahay naga cafiyo dhamaanteen anigii inta muslimiin oo dhan jazaakallah dad badan ayaa Xaliimo Gobaad ku taageereen markii ay fanka isaga baxday qaarkoodna waa ay ku dhaliileen hayeeshee hadda waxay u baahan tahay duco iyo in markaasi wadada Allah subxaanahu wa ta'aala wanaagsan oo ku hogaamiyo dad badan ayaana ka falceliyay muuqaalada kala duwan ay soo sheegtay horey barteeda Facebook ayay qoraal u soo dhigtay iyadoo sheegaysa inay fanka isaga baxday dadna waa ay taageereen dadna waa ay ku codaaliyeen ama ku culaadiyeen hadda sidoo kale dad ayaa ku taageeray markay ku arkeen Xaliimo Gobaad oo ah gabadhii qaawanaanta laga bartay madaxeeda iyo jirkeeda kale oo qaawanaan jiray balse hadda asturan dharka islaamkana xiran hayeeshee qaarkood waa ay taageereen qaarkoodna dhaliilo commentiga ayay markaasi ugu sheegayeen haddaba daawade adigu ma tahay qof taageersan maadaama fanka isaga baxday haddana xaramka ay tagtay si dambiyo badan oo ay gashay oo qawaanaanta ay qayb ka tahay alle uga toobad keento waxaana xusid mudan in taageerayaasha dadka ay yihiin laba nooc kuwa aan wax fikir ah lahayn oo iska hadal u ah iyo kuwa markaasi daacad ay ka tahay haddaba adiga dhankee ayaa tahay daawade mise taageersan tahay fanaanada caanka ah ee Xaliimo Gobaad in markaasi fanka si degdeg ah ay markaasi uga tagtay waxaana jiray sidoo kale fanaaniin kale caan ah oo fanka dhankooda hore uga baxay sida Xaliimo Gobaadna waxay hadda dadka Soomaaliyeed ugu baaqday in heesaheeda dhageysigeeda ay iska daayaan irsaaqadana meel kale ay ka raadsadaan maadaama shaqooyinka in adduunka yaalla fan kaliya aysan ahayn waxaana fanaanada wajigeeda xilliga ay markaasi xaramka muuqaalka kasoo duubaysa laga dheehan karay farxad iyo reereen ku aadan neecawda in markaasi qofka uu ka toobad keeno dambi oo hore uga jiray maadaama fanka uu yahay siba ognahaba markaasi dambi weyn qaawanaana ay la socoto maadaama fanaaniinteena Soomaaliyeed intooda badan ay yihiin kuwa aan asturneyn xilliga ay markaasi heesayaan haddaba daawada si oo aragtaa dadaalkii ay wado fanaanada caanka ah jirtay balse hadda aanan fanaanada ahayn ee Xaliimo Gobaad magu taageersan tahay go'aanka ay qaadatay maadaama fanka isaga baxday dambi ay doonaysaa in haatan iska dhaqdo maadaama ay naqtay marwo guur xaraala gashay isla markaana hadda dadaal badan ku bixinaysa in wixii hore ay markaas iska ilowdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal halkani waa janalka goobta media waxaan idin hayaa muuqaal cusub oo ku saabsan fanaanada caanka ah ee la yiraahdo Xaliimo Gobaad ee dhawaan sheegtay inay fanka isaga baxday ayashee marka hore muuqaalkan haddii ay tahay markii hore ama markii ugu horeysay uu soo gaaro
fadlan sheer garee oo la wadaag asxaabtaada ee sidoo kale janalkeena subscribe saara. fanaanada caanka ah ee Xaliimo Gobaad dhowaanna fanka isaga baxday ayaa waxaa hadda soo baxay in markaasi ay ku dhawaaqday in qof walba oo Soomaali ah taageerayaasheedana ka mid ahaa maadaama fanka isaga baxday ay joojiyaan heesaheeda in markaasi ay dhageystaan. fanaanada oo kasoo muuqatay iyadoo si degdeg ah ku tagtay xaramka barakeysan ee dalka Sacuudi Carabiya, waxa ayna muuqaal iyadoo asturan ay soo duubtay maadaama qaawanaan looga bartay ay sheegtay markaasi in xilligan wixii ka dambeeyay fanka guud ahaan aysan ka jiri doonin walo hore ay u shaacisay. waxa ay sheegtay in fanka wax wanaagsan uusan ahayn, dadka Soomaalida looga baahan yahay inay iska ilaaliyaan waxyaabaha dambiga ah. xaramka ayayna sheegtay inay u tagtay arrimo ku saabsan inay markaasi kobciso markaasi sidoo kalena dambidii ay hore u gashay ay iska dhaqdo maadaama fanka uu yahay dambi isla markaana sidoo kale ay ka toobad keentay. fanaanada caanka ahayd ee Xaliimo Gobaad balse hadda fanka isaga baxday ayaa dhowaan waxaa guursaday nin markaasi hore oo ahaa qaybta canshuuraha ama agaasimaha waaxda furdada ee dekedda magaalada Muqdisho, kaasoo horey xukun dowladda federaalka Soomaaliya ee ugu riday kadib markii lagu soo eedeeyay waxyaabo la xiriira musuqmaasuq. waxaana hadda ay ku aqal gashay dalka Hindiya toddobada markay kasoo baxday kadibna waxay eegtay xaramka. waxa ayna sharaxaysaa sababihii keenay inay fanka isaga baxdo iyadoona baaq u dirtay dadka Soomaaliyeed ee fanaanada taageeri jiray. fanki ka war horta fanaan waxaas oo dhan waa deeni mar dambe noloshaada inaa heesda maqaado mar ilaahay irsaaqad meelka nooga furo insha Allah. dadka fankaada dhageysanaya maxaa leedahay? waxaan leeyahay insha Allah fankayga dhageysanina mar kale wixii dambi aan gal ilaahay ha naga cafiyo dhamaanteen anigii inta muslimiin oo dhan. jazaakallah. dad badan ayaa Xaliimo Gobaad ku taageereen markii ay fanka isaga baxday, qaarkoodna waa ay ku dhaliileen. ha yeeshee hadda waxay u baahan tahay duco iyo in markaasi wadada Alle subxaanahu wa tacaala wanaagsan oo ku hogaamiyo. dad badan ayaana ka falceliyay muuqaalada kala duwan ay soo sheegtay. horey barteeda Facebook ayay qoraal u soo dhigtay iyadoo sheegaysa inay fanka isaga baxday. dadna waa ay taageereen, dadna waa ay ku codaaliyeen ama ku colaadiyeen. hadda sidoo kale dad ayaa ku taageeray markay ku arkeen Xaliimo Gobaad oo ah gabadhii qaawanaanta laga bartay madaxeeda iyo jirkeeda kalena oo qaawanaan jiray balse hadda asturan dharka islaamkana xiran. ha yeeshee qaarkood waa ay taageereen, qaarkoodna dhaliilo commentiga ayay markaasi ugu sheegayeen. haddaba daawade adigu ma tahay qof taageersan maadaama fanka isaga baxday haddana xaramka ay tagtay si dambiyo badan oo ay gashay oo qaawanaanta ay qayb ka tahay Alle uga toobad keento? waxaana xusid mudan in taageerayaasha dadka ay yihiin laba nuuc, kuwa aan wax fikir ah lahayn oo iska hadal u ah iyo kuwa markaasi daacad ay ka tahay. haddaba adiga dhankee ayaa tahay daawade mise taageersan tahay fanaanada caanka ah ee Xaliimo Gobaad in markaasi fanka si degdeg ah ay markaasi uga tagtay? waxaana jiray sidoo kale fanaaniin kale caan ah oo fanka dhankooda hore uga baxay sida Xaliimo Gobaad. Xaliimo Gobaadna waxay hadda dadka Soomaaliyeed ugu baaqday in heesaheeda dhageysigeeda ay iska daayaan, irsaaqadana meel kale ay ka raadsadaan maadaama shaqooyinka in adduunka yaalla fan kaliya aysan ahayn. waxaana fanaanada wejigeeda xilliga ay markaasi xaramka muuqaalka kasoo duubaysa laga dheehan karay farxad iyo reyreen ku aadan neecawda in markaasi qofka uu ka toobad keeno dambi oo hore uga jiray maadaama fanka uu yahay siba ognahaba markaasi dambi weyn qaawanaana ay la socoto maadaama fanaaniinteeda ama fanaaniinteena Soomaaliyeed intooda badan ay yihiin kuwa aan asturneen xilliga ay markaasi heesayaan. haddaba daawada si oo aragtaa dadaalkii ay wado fanaanada caanka ahaa jirtay balse hadda aanan fanaanada ahayn ee Xaliimo Gobaad magu taageersan tahay go'aanka ay qaadatay maadaama fanka isaga baxday dambi ay doonaysaa in haatan iska dhaqdo maadaama ay naqtay marwo guur xaraala gashay isla markaana hadda dadaal badan ku bixinaysa in wixii hore ay markaas iska ilowdo.